wadagdaga oo soo gaar daawadayaal waxa uu sheegaya in xiisad dagaal ay ka taagan tahay gudaha degmada Caalbuur ee gobolka Galgaduud halkan ayaa wax kula wadaagi doona warbixin soo koobaysa maxaa sababay xiisadaas dagaal ee soo dhaxaysa balse ka hor intaan kula wadaag xogta oo dhameystiran hadii ay tamar kursi muuqaal soo gaar muuqaalka Lexar sina shar garay qaybta hoose commentiga nuula wadaag aragtida ay ku bilawnay xiisad dagaal ayaa waxa ay ka taagan tahay gudaha degmada Caalbuur ee gobolka Galgaduud dagaalkani ayaa waxa u dhaxaya xubno ka tirsan kooxda qawaarisa al-shabaab iyo soo kale qaar ka mid ah bulshada degta degmada Caalbuur dagaalkan ayaa yimid kadib markii kooxda al-shabaab ay bilaabeen in si qasab ah u ka haystaan dhalinyarada ku sugneed degmada Caalbuur iyo soo kale deegaanada ku teesan isla markaasina ay tababar uga fureen gudaha degmada Caalbuur ee gobolka Galgaduud sida ay noo xaqiijiyeen ila wareeyay dadka deegaanka waxa gudaha degmada Caalbuur tababar looga furay dhalinyaro gaaraysa 45 nin oo dhalinyaro ah isla markaasina ahay dadka deegaanka odayaal dhaqameed ka soo jeeda beelaha ay ka dhasheen dhalinyaradani ayaa waxa isku dayeen in kooxda al-shabaab ay kala gorgortamaan ama ay kala macaamilaan dhalinyaradani isla markaasina odayaashu waxa ay sheegeen in ay sahaatan diyaar u ahayn in ubadkooda ay ku biiraan kooxda al-shabaab hase yeeshee 9 maalin oo shirka socod degmada Caalbuur ee gobolka Galgaduud isla markaasina u dhaxay odayaasha dhaqanka iyo kooxda al-shabaab ee ka tirsan degmadaasi ayaa maanta waxa gabi ahaanba xabsiga loo taxaabay 9 oday dhaqameed oo ka tirsanay bulshada degan degmada Caalbuur isla markaasina qaarkood ay ka soo jeedaan degmada Galhareeri odayaashani ay kooxda u taxaabtay xabsiga isla markaasina waxa amarkaana bixiyay hogaamiyaha kooxda al-shabaab ee ku sugan degmada Caalbuur nin lagu magacaabo Abu Ubayda isla markaasina hore u bixiyay amarka in la soo afduubo ama si qasab ah lagu xareeyo dhalinyaradani tani markii maanta odayaas la xiray ayaa waxa tan xiisad dagaal ama saansaan dagaal laga dareemaya gudaha degmada Caalbuur ee gobolka Galgaduud isla markaasina kooxda ay bilowday in ay bartilmaameedsato ehelada ay ka soo jeedaan dhalinyarada iyo soo kale odayaasha sida ay noo xaqiijiyeen ila wareeyay dadka deegaanka haatan waxa kacsan xaaladda degmada Caalbuur ee gobolka Galgaduud iyadoo xilli kasta la filan karo inay isbedesho xaaladda guud ee degmada isla markaasina halkaas uu ka dhaco dagaal qaraar oo u dhaxeeya bulshada reer Caalbuur iyo soo kale kooxda qawaarisa al-shabaab oo in ka badan 15 sano gacanta ku hayay degmada Caalbuur ee gobolka Galgaduud afduubka dhalinyaradan ayaa yimid kadib markii kooxdu in badan ay dadka deegaanka codsadeen inay keenaan dhalinyaro ka barbar dagaalanta kooxda al-shabaab hase yeeshee dadku aysan dhig jar qusin isla markaasina odayaasha deegaanku ay si weyn uga hor yimaadeen dalabka kooxda al-shabaab ee ku aadan in ubadkooda ay ku biiraan kooxdan kadib markii kooxda in badan ay ka dalbadeen dadka deegaanka inay keenaan dhalinyaro balse ay dadku keenin diideen ay kooxdan waxa ay bilaabeen inay afduubtaan dhalinyarada ku sugneed degmooyinka Caalbuur iyo Galhareeri iyo soo kale deegaanada ku teesan 45 dhalinyarada ah ayaa waxa laga soo aruuriyay deegaano fara badan waxaana tababar socod muddo 2 bilood ah si aan ku helin xogaha looga furay gudaha degmada Caalbuur ee gobolka Galgaduud soo kale kooxda ayaa wadooda ciidan waxa isku geeyay koonfurta gobolka Mudug gaar ahaan eeriyada deegaanka Shabeelow halkaas oo dhawaan dowladda federaalka Soomaaliya ka bilaabi doonto wajiga labaad ee dagaalka dhanka kooxda qawaarisa al-shabaab walow haatan ururka 8aad guutada 18aad ee kumaandooska gorgor ay tan iyo shalay halkaas ka wadeen howlgal balaar isla markaasina lagu baadi goobayo goobaha ay deegaanaas kaga dhumaalaysanayaan kooxda qawaarisa al-shabaab si walba ahaataba kooxdan waxa ku jira maalmihii ugu dambeeyay noloshooda ayaa wax ay bilaabeen in si qasab ay ku afduubtaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan deegaanada ay ka taliyaan isla markaasina cid kasta oo ka damqata ama ka daba tagta dhalinyaradaasi ay xabsiga u taxaabaan dawadayaal halkan waxaan kula soo wadaagi doonaa wixii warar ah ee ka soo kordho degmada Caalbuur ee gobolka Galgaduud oo ay haatan ku xireynayeen odayaal gaaraya 9 oday isla markaasina ahay odayaal dhaqameed ka soo jeeda Caalbuur iyo Galhareeri xarigga odayaashan ayaana yimid kadib markii ay odayaashu ku dayeen dhalinyarada ay kooxda afduubatay inay soo badbaadiyaan wixii warar ay ka soo kordho halkan ayaan kula wadaagi doonaa balse daawada deeta markuu muuqaalka soo gaaray muuqaalka Lexar sina share garay qaybta hoose ee commentiga nuula wadaag aragtidaada